maamulka degmada gabiley iyo xildhibaano ka tirsan golaha deganka gabiley ayaa kormeer ku tagay arday badan oo geedaha hoostooda wax ku barata deegaanka Gubeysa oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gabiley waxaana halkaas ku soo dhaweeyay dadka degan deegaankaasi iyo ardayda halkaas wax ku barata iyagoo ka dalbaday in ardaydaasi cadceeda laga xireeyo oo loo dhiso fasalo ku filan halkii hadalka meesha fog la gaarsiinay odayga aanu gaarayno muddada ku gaaray maanta alxamdulillah niman dhalinyaro meeshii loo baahday marka kelmadda looga baahdo la gaarsiinayo fikirkaagu gaarayo hore u hayo waliba hore uga jawaabaya la xogayaha fulinta dawladda hoose gudoomiye xigeenka golaha deegaanka Gabiley oo halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan aragnaa inay ardayda ku dhigtaan waabo oo maga saddex waab oo halkaan naga soo horjeeda ay saddexda waab yihiin saddex waab oo ay ku dhigato ardaydu dhammaan anagu runtii tani waa kormeer aan ku wada mari doono tuulooyinka runtii waa kormeer noo bilowday sanadka cusub waa kormeeradii ugu horeeyay sanadka cusub waxaan tuulooyinka iskuulada ku yaalaan ee gobolka kooban runtii waxaan u sheegaynaa inaan dhammaantiisa wada mari doono maayirka Gabiley Shacaay Maxamed Muuse oo arintani ka hadlay ayaa waxa uu yiri miisaaniyada 2014 sanadka imika aanu bilaabayna insha Allah waxaan idinku daraynaa 2 galaas iyo ofiskoodii iyo hawlahoodii oo dhameystiran iyo suuqyo taa markaa waxaan ku soo gabagabeynaya halkan waxa laga sheegay inaad cashuurtii sanadkii waddanka gashay cashuurta adwoonka ku gasheen waad heli doontaan abaal celinteeda haddana cashuurihii dawladda xagga hore ka galay ilaa alla magaan xaq baad u leedahay in wax la idin qabto Shacaay Maxamed Muuse maayirka magaalada Gabiley mar warbaahinta la hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa warbaahinta uu sheegay in meelaha baahidu ka jirto ay warbixin ka keenaan ee aanu kormeer ku gaari weyno si aan u dareeno baahida meesha ka jirta waxay tahay intay soo raacaan inay sidii berigii kala beedo kale home cable uu uga soo sameeyay ee baahidiisii wax looga qabtay inay kormeer u baxaan oo iyaga laftooda ay xilqaameynta gaari ka haystaan ay tuulooyinka iyo degmooyinka baahiyaha dadkeena ka jira ay sameeyaan gabagabadiina waxa waftigani halkaas qada sharaf ugu sameeyay dadka degan deegaanka ee soo dhaweynayay mukhtaar Nuux ibraahim hctv gabiley.